dhanka kale aan ka fiiro waxaa taa macallin wax ka dhiga degmada Puntland iskuulaadka ku yaala iyo weliba nawaaxiga doolan oo dhan ka soo dhigay iskuulaad sababta seetar waan ka soo shaqeeyay Lotfiga waan ka soo shaqeeyay Puntland waan ka shaqeeyay maxaa sababa in dhalinyarada Soomaaliyeed percentage-kii loogu talagalay dugsiyada sare inay u gudbaan aysan u gudbin oo ay ku adkaato wallahi horta caqabad way jirtaa arrintaas sababtoo number yar ayaa dhalinyarada Soomaalida u gudba dugsiga sare markay Burundi iskuulka ka baxayaan oo university u gudbayaan number yar baa gudba inta kale tabtiig fiican ma helaan laba wax way tahay midda koowaad iskuulaadka ay dhigtaan tusaalahan hadda Puntland oo kaleeto iskuulaadka ay dhigtaan resource fiican kama helaan studiyaha leedare oo macni waqti ku filan ma helaan way helaan in ma sha Allah laakiin waqti ku filan ma helaan midda labaadna ma jirto amaba way yar tahay haddii jirtaan caawimaad iskuulka ka bacdi inay helaan way jiraan foreign sameeya laakiin kuma filna marka waxa loo baahan yahay waxa weeye in kor loo qaado caawimaadii aan dadaal badan bay u baahan tahay in la gaarsiiyo meesha aynu la rabno inagu oo in 100% ay dhibco fiican ku gudbaan oo dugsiga sare ay tagaan cali waxa tahay tusaale marka la soo qaaday siyaasiyiinta dadka Soomaalida u fadhiya in degmada ama xisbiyada ugu jira waxa taa macallin dhibka halkaa ka jira adigoo degmadiina qayb ka mid ah nabdanka fadhiya arrimahaas ma la wadaagtay siyaasiyiinta xisbiyada waxa jirta wax la yiraahdo bono building isnaamdan siyaasiyiin Soomaali way fadhiyaan way ku jiraan dabcan xisbigayga waan u gudbiyay fashiloogaas in wax laga qabto runtina way jirtaa baahida macallin la'aantu wadanka dhan bay ka jirtaa laakiin khaasatan xaafadda hadaan deganahay Shaanaangar oo kaleeto iskuul baa ku yaala bihoorig laaro mid miyamis walaba anima haystaan macallimiin taasoo kaleeto xisbigoon u gudbinay fashiloogaas in wax laga qabto macna iskuulkaas sababtoo khatar waxa ku jira ilmihii iskuulka ka soo baxayay cunugii ma helayo waxbarasho fiican ma helayo marka halka khatar baa ka soo socota cunugani ma ahan kaliya mustaqbalkeeni oo mustaqbalka wadankan aynu ku noolnahay xataa marka waan kala hadalnay dabcan way imaan doontaa in wax badan laga bedelo sababtoo mandate-kii hore iyo kani wax badan bay ku kala duwan yihiin Faisal maxay ku kala duwan yihiin xisbiyo badan oo markii hore ayaa hadda midtan majority-ka ku jira oo marka dabcan wax badan baa la soo kordhinaya wax badan oo wanaagsan waa la qabtay wax ka sii wanaagsan waa la qabanaya armay tii hore ka sii liidataa la isdhex karaa cali Faisal taas ma aaminsani wax badan oo wanaagsan yaa soo socdo la qabanaya cali xisbiyadii afartii sano soo maamulayay shaqooyin fiican bay qabteen